madaxweyne Siraayo maalintii afraad waxa uu socdaal loogu magac daray socdaalka hawdka iyo buuraha ku maraya deegaanada xuduudka Soomaaliland aragtiyo kala duwan ayaa shacabka iyo waliba siyaasiyiintu ka dhiibteen haddaba waxaan isku dayi doonaa inaan isdul taagno madaxweyne Siraayo iyo socdaalkiisa muxuu kaga duwan yahay kuwii hore tacabka adduunyo iyo waliba mid caqli ku baxayeen madaxweyne Siraayo isagoo wata wasiirro iyo waliba saraakiisha ugu badnayd ayuu u boqolay gobolka Awdal dad badan dhagtaayay u taagayeen wax ka soo bixi doona reer Awdal iyo waliba madaxweyne Siraayo oo warkiisa in badan ay doonayeen iyo waliba waxa uu waday warar xogogaal ayaa u sheegay Star TV in salaadiinta gobolka Awdal ay u sheegeen madaxweynaha Soomaaliland in la soo gaaray waqtigii uu dhagaha u furi lahaa cabashada ay ka qabaan dawladdiisa loona baahan yahay inuu u bareero insaami qaybsi ay u baahan yihiin laakiin waxa su'aal la geliyay socdaalka madaxweynaha ee gobolka Awdal sababtii madaxweyne Siraayo u seexan waayay magaalada Boorama isagoo wajaale u hoyday waxaana jira tuhunno la sheegaya in labada dhinac isfahmi waayeen wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne Siraayo iyo madax dhaqameedka gobolkaasi ay gaareen heshiis walow aan warbaahinta loo soo bandhigin waxa ay sheegeen in tabashooyinkoodaasi aanay ahayn tabashooyin waqtigan imika la joogay madaxweyne Axmed Siraayo ku qalloocday ee ay yihiin sida ay yiraahdeen tabashooyin muddo soo qalloocanayay oo muddo soo xumaanayay laakiin ay Axmed Siraayo oo ah madaxweynaha Soomaaliland u doorteen inuu yahay madaxweynaha kaliya ee ay yiraahdeen xal buu heli karaya Allah ma hadii weeye madaxweynaha ma hadda ay u celiyeen madaxweynuhu ka gudoomay madaxweynuhuna wuxuu u ballan qaaday sidoo fagaaraha horeba uga sheegay in uu fulin doono oo wixii suurtagala uu wax ka qaban doono Ibraahim Mahdi Buuba waa fayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu ka hadlayaa dareenka xisbigooda ee ku aadan socdaalka madaxweynaha waxaanu yiri waa mucjisooyinka ummaddu isweydiinayso baki waxaynu ku arkaynay safaf wasiir oo tuban wadada hareeraheeda oo madaxweynaha gacanta u haadinaya soo dhaweynaya waftiga ka tirsanayeen dabcan way la socdeen haddana way ku horeeyeen intay si istaageen ayaa malaha shacabku waa laga baqday inay soo bixi waayo safafka istaago wadada intay soo istaageen gacmaha u ruuxayeen shaqadii iyo xilkii qarankan ay u hayeen ma waxay ku ekaatay in madaxweynaha u raacaan oo safar ku soo dhaweeyaan madaxweynuhu samiyaan u garanay talo inay wasiiradii yihiin kuwan oo xilalkii qaranka loo igmaday intay ka wada yimaadeen ay barbar socdaan waxaanu leenahay xilkii loo igmaday wasiiradaasi way ku gafeen garanayo arrimo macdan iyo siimoodi buurta la yiraahdo wax la mid ah ay kaga wada hadleen ereyadaasi nasiib darro may dhicin halkii arinta ay taalay ee gogosha u taalay in uu kaga hadlo arintii Awdal iyo tabashadii gobolka Awdal iyo madax dhaqameedkooda qabeen goor fiid ah oo habeenimo uu madaxweynuhu soo galay waxyaabaha la yaab kale ee nooc intii waayeen lagu kalifin shirka jiraad ka qabanno waxa kamid ah in madaxweynuhu goor fiid uu ku soo galay magaaladii Boorame oo magaaladii aynu filaynay inuu la hadlo wax garadkeeda iyo aqoon-yahankeeda madax dhaqameedkeeda iyo culimadeeda caruurteeda iyo dhalinyaradeedaba oo madaxweynuhu ku nagaado muddo oo gacanta soo mariyo qof kasta tabashadiisana uu soo daweeyo waxa aynu ka warqabnaa in madaxweynuhu saacad ama laba saacadood wax lagu qiyaas karayo uu ku hakaday magaalada Boorame oo halka uu kula kulmay waxoogaa madax dhaqameed ka tirsan wax buuran aan lees oran wax noqotay arrin ficilisa mucjisana lagu noqotay aan una adkeysan kari weynaa anagu xisbi ahaan oo lagu kaliftay inaanu ka hadalno arrinta ayada waxay noola muuqatay madaxweynuhu inaanu diyaar u ahayn tabashadii iyo cabashadii ka taagneed gobolka Awdal iyo xasaasadii siyaasadeed ee ka jirtayba inuu haba yaraatee wax hal ah oo hayo ama wax hal ah oo doonaya in arrinta laga gaaro haba yaraatee aan jirin madaxweyne Siraayo markii uu dhameystay socdaalka gobolka Awdal waxa uu booqday goobo xuduudka ku teedsan sida deegaanada Faraweyne Beligubadle Salaxley marka shaashadaha siyaasadeed la duldhigo waa mid la buunbuuniyay wasiiradii iyo waliba agaasimayaashii dawladda ayaa dhex sacaba tumanaya iyadoo kharashaadka iyo waliba nidaamka maaliyadeed ee ku baxay uu ahaa mid madaxaha ku furtaa ciidamo xoogan ayaa iyaguna ka dhex muuqday socdaalkiisa
wasiirada dowladda Somaliland intii madaxweynaha maqnaa waxa haawanayay guud ahaanba wasaaradaha dalka. Madaxweyne Siraayo oo muddo ka badan 40 sano siyaasadda ku dhex jiray ayaa kuwa isaga dhaliila waxa ay ku eedeeyaan inuu maamulkiisa u daciifay dad gaarina la wareegeen nidaamka dawliga ee Somaliland iyagoo oo daliil uga dhigaya jawaab la'aanta dhinaca cabashooyinka iyo waliba dareenada isbiirsaday oo madaxweynaha dul hoganaya. laakiin saraakiisha gacanyaraha waxa ay safarkani ku macneeyeen mid madaxweynuhu ku muujinayo inuu wali ordi karo taladii wadankana gacanta ku hayo iyagoo ku doodaya in socdaalka inta badan madaxweynuhu ku adkaystay. waxaa jira aragtiyo kale oo siyaasiyiinta dhexdhexaadkii qabaan kuwaasi oo iyaguna ku doodaya in socdaalka madaxweynuhu yahay mid olole doorasho loogu diyaar garoobayo. xisbiyada mucaaradka Somaliland waxay maalimihii u dambeeyay isha ku hayeen socdaalka madaxweynaha ee gobolada Somaliland. madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo musharaxa xisbiga Kulmiye sidoo hore u sheegay waxa uu tartan adag la gali doonaa labada hogaamiye Cabdiraxmaan Ciro iyo waliba Jamaal Cali Xuseen. Patrick Koosar Maxamuud, Star TV.